gaboose hooyaday maaha tolkay maaha xigaalkay maaha garasho iima yaqaano waa dhakhtarad gaboose wuxuu igu yiri waxaad haysiinu ku daweynaynaa waayahay baan ku yiri marka waxyaalaha anigu aan marnaba niyaddeeda ka bixin marnaba aan niyaddeeda ka bixin oo ilaa hadda aan abtiyaashay iyo ehelka dhinaca hooyaday aanan salaanta sharciga aanan uga qaadin baan idiin sheegaya hooyaday anigoo dhakhtarkii markaan dabcan u geeyey aan dhakhtarkii u geeyey kabacdi qofkan wuxuu u baahan yahay maadaama caafimaadku waa shay aad u muhiima guys okay qofku markuu saxarada iska bi'in karo markuu kaadida iska dhaqin karo markuu xaarka iska dhaqi karo waa intuu caafimaadka qabo waa intuu xubnihiisa qabo okay kabacdi waxaa dhacday waxaa laygu yiri maamada ka soo hagaaji saxarada iyo waxaan ka soo hagaaji waaya baan kuri saxarada waxaan ka soo hagaajinayaa ii soo qabo saxaradii baan ka soo hagaajinayaa baan ku yiri waan u bedelay maryihii baan u bedelay qofba waxbaanay laawin moogta qofba waxbuusan ilaawin marka waxaana ilaawin baa waxay tahay dhakhtarka wuxuu igu yiri orod maamada saxarada waxaan ka soo hagaaji meeshan saarena waayahay baan ku yiri kabacdi waan u dhaqdhaqay saxaradii baan ka biyey waa hagaajiyey kabacdi markaan saxaradii u dhameeyey aan ka tirtiray inta korsaa ay igu eegtay waxay igu tiri mataqaanaa ya nin horta adigu kumaadahayd bay igu tiri gawdhe adigu kumaadahayd bay igu tiri gawdhe adigu ka waran ilaah baa idinku dhaar qof hooyada ah ku dhashay 9 bilood uurka kugu soo siday oo ka waran ku garanba weyday ka waran kaasay dadna qaar hooyooyinka dhibaasa wallaahi billah waxyaalahan caloosheeda ka bixin uurkayga waxyaalahan ka bixin waa gawdhe kan saxaradii ka dhaqay awshi u dhameeyey korba intay saa igu eegto waxay igu tiri mataqaanaa nin horta adigu kumaadahay gawdhe marka waxyaalahan aan abtiyaashii kaga calool go-ay bay ka mid tahay wallaahi xitaa ma sheegto dadnimo uma sheegto ehelnimo uma sheegto because waay hooyaday maalinta ay xanuunsanaysay anigu cunug yar baan ahaa